ولا لا قاليا سودو هذا ملك السو عالم كجوجتين حلك السو إدين تهاي وحن يدين رجينا يا عافمت قبتام وحن يدين سلام يا سلامة إسلامك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته halkaad iga daawanaysaan waa Imraan Cabdirashiid Janaal hada ku cusub tahay oo hadda aad soo gaartay waxa ka codsanaa subscribe share like commentiga intaas oo idin dhiirigelinayno codsi waay amar ma aha inaan noo garab istaagtid hada hore noo la joogtay la joogitaankaaga waa ku mahadsan tahay maanta waxa ku wada barnaamij laakiin inta u gudugelin barnaamijka fadlan muuqaalkan ila daawo ما أرحم رب العالمين وما أعظم هذا الدين. يقول الله جل في علاه عن نفسه يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ويقول سبحانه وتعالى عن كتابه العظيم ولقد يسرنا القرآن للذكر. ويقول سبحانه وتعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عن هذا الدين كما في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة إن الدين يسر إن الدين يسر. بل إنه صلى الله عليه وسلم كان يأمر باليسر مباشرة هكذا وصراحة يقول يسروا ولا تعسروا كما هو معلوم. بل إنه عليه الصلاة والسلام وهو قدوتنا وإمامنا في كل خير كان يتمثل اليسر في حياته. في الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما. والأركيسين أو دعوتين مقالك وكود بوجتين الصومالي والوقت ما أرتكال رجع ما شاء الله هالك إريا وحولية هاي أنت صومالتي ترجمات إنه سيد الربا لجوفها سين كلام ما قالتي مركز شغال ولا دعوتين مرة بدل ما أكهلا دينتوا فضيل دينتوا نحريس دينتوا سان مرة بدل يا ذاتك يا الوقت كان يسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا ذاتك دينتها كعيرنا ذاتك هلون حريستو حديث قدام بي عائشة رسولك إكويرني رسول صلى الله عليه وسلم هدي لبا أرين للدورنسيو تهذا فوضو خادم جري يا مركز كمو سنة أتكين جري marka isbuucan waxa dhacay inuu masaajid soo istaago oo ma aragtay baabajay buudka la maro uu ku tunto masaajid soo dhex taagan oo masaajid ka hadlaayo baabajay asal muxuu dhahay masaajidku ka dhex khudba jimcu ugu jafe laakiin sida xaqiiqada hadda la soo helaayo ninkan waxa la dhahay khudba jimcada markii laga dareero masaajidka laga kala baxo oo muxuu sameeyaa ميكروفونك انت كسرن واسكدميا محسوق ميكروفونك كاميراديسا بس اوشيدانو كاميراديسا نينك كدوبايا اسا اسكو سو هارو markay isku soo haraan waashita wasi deesta marka nin masaajid joogo dad uma xaadareyna u wacdina iska dhigaa markaas uu meesha dadka soo karbaashaa masaajidka isku soo dhaxira taas waa la magaalada Muqdisho la jooga xaafada Kaaran masaajid meesha ku yaalo maartay oo dadka u qitmay kamid yahay marka meeshaas uu ka jib haleeyay youtuberna waa yaalaha marka kuma dambaabi karno intaas waxa waay wax la keenay leeyahay laakiin sida noo muuqato ninka sida noo muuqato aataas sababtoo ah ninka fudada ka muuqdo hadda hatta waxa ku soo raacay yarkan yar oo muqtaar ونيو نين في عنا لكن فدادا نفتركاga fudada hadda kabihi fudadka gashanaysa baada gashanaysa iska dhaaf istartiibi waxyaabaha cilmigu u leeyahay laga ma hadlo badka weyn lama dabaasho waxyaabaha qaarkood waa laga gaabsadaa adoo ka hadli karto oo mudan inaad ka hadasho waxyaabaha qaarkood waa laga aamusaa ninkan waa kana ila daawada muuqaalkiisa baabajay buudka la maray askaygan laba filan u sameynaya war baabajeeyo jaahil baa tahay war Muqdisho riskiga ka jira war mobeelada la isku dilaya war hadaad xaaskaaga dahab rabto inaad siisanin wala dhuumo ana runta ku sheegay wallahi Muqdisho dhiba ka jira maanta ninka inta uu madax soo hor istaajiye xaaskiisa yiraahdo dahab baan siinaya waa nin ka dhacsan waa nin waalan waa nin jaahil ah kuma hor qaatay
350 qofood baa ku xiran baabajey oo muxaadaro diiniya YouTube-kiisa soo dhigay qofkii ii keeno abaalmarin buu leeyahay hal qof oo Soomaaliya oo baabajey YouTube-kiisa maalin intuu baraha bulshada soo galay ilaa iyo maanta ninkii ii keeno $1 buu leeyahay $1 aniga Salaad Maxamuud Hasinay babajeeyow raali ku naqan mayno dulmiga iyo macaasida iyo munkarkaad ilaahay ka galaysa ay jooji ama horta ninkaan sax qodob ka hadlay qodobkan hadda yar u dambeeyay xoogaa waa iska soo yara waa soo ugu gaabnaa marka ka soo qaaday TikTok-ga laakiin ninkaan sax qodob ka hadlay saddexda qodob oo koowaad oo mid koowaad oo ah babajeey xaaskiisu ma aragtay lama filaana u sameeyna intuu dhaho wuxuu soo horistaajiyay baraha bulshada oo kadib uu dahab meesha ku siiyay saas darteed babajeey wacdiga muqdisho ka jiro lama socdo macnaha waaqiciga muqdisho ka jiro lama socotid nin jaahil ah tahay nin waalan tahay nin doqona tahay maxaa kale ku soo hare babajeey talabaad oo ah babajeey janaalkiisa muxaadaro ma soo geliyo qofkii keeno anaa $1 siina 350,000 oo qof ku xiran muxaadaro ma soo geliyo wax wanaagsan dhan ma ka hadla babajeey xaga ma igtaas maxaa ku soo hare waxaa ku soo harte wuxuu dhahay babajeey fuxshiga iyo xumaanta iyo buuqa aa ku haysid baraha bulshada waa in kuguma dul qaadan karnaa inaad naga yaraysaa macnaha ilaahay ka cabsataa horta ninkan ama babajeey qaladaadka uu ka gala baraha bulshada inaad u sheegtid iyo ama inaad sidaan wax u gudbisid way qaldanta bataataba totally diinta islaamka meel ugu jirto ma jirto babajeey waa inaad kasoo raaligelisaa saa usoo gudbisay barnaamijkan waa qalad totally waa qalad sababtoo ah adoo masaajid taagan mimbar taagan oo ma aragtay inaa qof magaciisa soo qaato qalad waa naseexa waa dadka wax wanaagsan wada sheeg Soomaaliya idil inteeda badan YouTube-keeda ma soo gelayso muxaadaro si caama uga wada hadli kartaa saraaxa waxa leeyahay wariyaa Soomaaliya dhageysta warsaasa sameeyna war xaasiskiina baraha bulshada soo istaaysan lama filaan ha u sameeyna wardaha baasiina rasuulka sallallahu alayhi wasallam markuu uma artay arrin ka hadlaayo in la joojiyo dadoo waxaa jira dad saas ha iska dhaafaan arrintaasiito laakiin hebel afar fiiqayso taas horta waxaa waaye qalad waaye midda kale oo labaad waxaa jirto waxaa dhahda lacaga oo bixinayaa baadi ballan qaadiya sameynaysaa adi ninka ma u socotaa mise ay diiniyan waxa inaad gudbisaa daacdi ya diinta aad ku dheelaysaa walaalkii wax ku sheega laadaha runta wax ku sheego laadahay laakiin diinta ku inta wax dhis isleeda wax badan ay duminaysaa wax badan oo diinta duminaysaa lacag badan qaadaysaa ninka aad taageeranaysaa caadi ninka maanta ku soo jawaabay waxay sadaraastaa ama aad dagaasha ama arinta meel xun ay ka dhacdo waxa soo dhacdaa koos gareysay lacag bixinaa $1 bixinaya anaa $1 bixinaya ninki babajeey oo maartay muxaadaro keeno muxaadaro janaalkii soo geliyay qofkii keeno $1 maxaa waxaas dhan gelinayaadi ya walaalo taas qalad ku tahay saad u tiri wuxuu sheegaysan ninkan qalad waa mid kale saddexaad ku soo hartay babajeey markuu live ka dheelaayo waxyaabaha uu sameeyo war dadkiina live ku jiro war waxyaabo fara badan oo xumaan ah ka dhaco war ilaahay ka cabsada ilaahay oo soo noqdina dheh wali qof aad taageeranaysaa adi babajeey ku heesaa magac ma ku raadinaysaa ya hada magac ku raadinayso wadada kale waa laakiin misaajta soo dhaxsaatay saas wax u gudbini sidaas wax ay noqoto ma jirto dacwo ma noqoto waxba ma noqoto babajeey ninka oo soo jawaabay babajeey si wanaagsan uu kugu soo jawaabay wallahi billahi ta'ala babajeey wuxuu dhaanay waxa cilmu leeyahay faraha magashana haddii diinta saan ay qabto iyo haddii qabin iyo wixii aad laga dhihi lahaa ummadda Soomaaliyeed u daay marka niyahow waxa waaye arrintaas babajeey ka soo raaligelay haddaba babajeey muxuu ka dhahay waxa jiray sheekh oo masaajid dhexdiisa iga soo aflagaadeeyay aan rabaa inaan u jawaabo ma astaghfirullah waa nin sheekh ah uma jawaabayay laakiin aragtideeda ka aadan 3 qodob oo kaliya in aan ka dhaho in aan warka sii dheeray aniga ma jecli tan koowaad tusaale ahaan
shiiqa wuxuu igu arkay aniga xumaan dacwada amaba diinta islaamka in rasuulkan calayhi salaatu wasalaam si naxariis leh ayuu ummadda ugu gudbin jiray adiga qof walaal ah qof ehelka ah qof asxaabta ah aad waxaad ku aragtay xumaan midda koowaad haddii caaqil qofka uu yahay shiiq dhammaystiran uu yahay sida aan ka aragnay culammadeenna oo ugu horeeya sheekh mustafa qofkiina aad u imaado aad dhahda awalan walaalow waad qaldan tahay waxaad ku socotid xumaan waa ilaahay raali kama aha ummadana raali kama ahan ha fasahadinin ummadda waaba haddii qofka qalad lagu haayo walaalow iska dhaaf si hoosaad ugu sheegaysaa qofka waa uu ka qaadan waaye waxa ku furan waddo labaad eheluu leeyahay qaraabuu leeyahay toluu leeyahay asxaabuu leeyahay waad u imaanaysaa war qofkiina naar buu ku socdaa wax fiican ma samaynayo ummadda xumaan buu u gudbinayaa ummaddaha laga qabto wanaagiis baan jeclahay jannaan la rabaa ehelkeed u gudbinaysaa wax celiyo amaba wax ishta haddii aad weyso qodob saddexaadaa ku furan oo ah in aad babliga dhex keentaa dhahdo ummadoo ilaahayow ninkan daawada xumaanuu samaynaa saanuu yeelaa kan uu yeelaa saddexda mid ka mid ah ma aadan samaynin aniga qof la weyn kara baabajey sidaas wanaagsan oo la soo hadlay ninkaaniinta ugu soo jawaabay asoo ceenin asoo xakii kale xataa waxaa uu baabajey wuxuu dhahay aniga uma jawaabi karo sababtoo waxaa laga yaabaa ninkaa inuu iga cilmi badan yahay sheekh waayuu dhahay aniga uma jawaabi kari jawaab ma siin kari balse fikradeeda wixii iga aadanaa ka dhahaya baabajey si saxanu kula hadlay walaalow ninkan waxaan kasoo raaligeliy attaakin caadi waaye diintana ma ogolo qof in la attack gareeyo dacwada si waxaa loo gutaa public jamaaca ah dhehe si jamaaca ah ya dadka markaas lama kala qaada hebel lama dhaho si jamaaca ah loo gutaa si jamaaca dadka wax loogu wada sheegaa qofka marka wax ay saameynayso asaa garanayo kadib si jamaaca markaa u hadasho haddii lagaa qaadin waayo haddana waxaa la rabaa qofki si kii kaleete hoose inaa ula hadasho ya si hoose markaa ula hadasho uu kaa qaadan waayo waxaa haddana maxaa waaye ma aragtay dad yaaw iyo waxa dad u hadal ka maqlaa iyo qofki inaa wixii ka celisaa waa gaarsiisay adi dacwada waa gudutay laakiin sa adi hadda sameynayso saas barada hore idinkugu sheegay ani marar badanaa sheeganiyo dadka ما أردت العلم القليل يقلقل صاحبه شروط الدعوة متى كانت دعوة محاك قلت واجب شروطي وحي متى كانت كتبوا عارضة الدعوة هنا قلت ما فيري مالو مدحتاج انت عادي داعية شيء نساي مالو مدحتاج انت وريها وحياها كان قد رسول صلى الله عليه وسلم حديث واي ما حسوسته لكن وحاول حديث كثير انه معني اذا حسوسته هي هو ما ذي وما أردت الزينيسي أسوأ حاسقه وحوده هاي وهي زينيس رسولك إلهي markaas rasuulku ka sii jeestay wuu karaahsay waxaan u sheego wuu ka meermeertay ninkii ku celceliyay markaas wuxuu dhahay waxa ku qeyr badnaan lahayd adii ilaahaygaga kaliya inay idinka dhaxayso arrintan marka marada waxyaabo qaarkood inaad ka sii jeesatid oo loo baahan yahay jirto idinka ma taqaaniidbo qofkii soo qaadanaysiin sawirkiisa isku soo hormarinaysiin bab magaca ku raadinaysiin taas ogolaada magaca ku raadinaysiin ama baabajey hal qodob baa jiro oo xaqiiqo ah aan laga gaban karin taas waxay tahay baabajey markaa life ku jirtid cilmi fartuun balbalaarka horta cilmi la dheeri jirtay cilmi waxyaabo fara badan aan kugu soo babatay waa iska dhaaftay waa iska jirtay dadka bulshadii iyo ma aragtay falcelintiisii iyo dhaqamadiisii wixiisa iska batay waa iska jirtay fartuuna hadda la dhiishaa badanaa geemam la dhiishaa waxyaabaha lagu soo qaqaatay kamid ah waxyaabaha siit waxaa waaye adi fartuun kaftana inay ka dhaqadhaco marka haddiiba afkaaga aa ku controlatid aabaana tahay ilmaa leedahay xaasaa leedahay lifekaaga iska soo gal fartuuntaada iskala dhiil meelahaada iska boodbood waxaa waaye laakiin afkaaga waxyaabaha xunxun ama kaftanada meelaha xunxun kula galaya iska ilaali walaalkii taasna naseexa waaye waxaa waaye waxyaabaha khaladaadkaa dhacdhacay gafufkaa dhacdhacay iska ilaali maadaama nin weyn aa tahay oo aabe ah oo ma aragtay reer leh waxyaabaha gadaal backgroundkaaga dib u saameynayo inaad iska ilaalisi taasna adiga ku wanaagsan tahay war dadka daaciyaasha sheeganayo oo ma aragtay tiktok joogaan hadda yarkaan mukhtaar ku leeyahay wallahi been maaha waa yar fiican maasha allah laakiin hadda kabihii fudeedkay u geliyeen waxaa lagu soo taageerana isla marka waa soo qaadanaa war masaas ma ahan yaa sheekh yaa daaci maxaa waa ummadda u naseexeeya
ummadda diinta aka erinina ummadda waxaa waaye xumaanta ha usii kiikaleenina war ummadda si wanaagsan ula hadla kalaamka wanaagsan waa sadaqa barnaamijkeennii halkaanaa kusoo afmeerayaa salaamullaahi calaykum idil ahaantiinba meel kastoo aad joogtiin ninkaas idan hala gaarsiiya ninkaan ha soo rala